shixnadan gargaar ee ka timid dowladda China oo ay ugu tala galeen barakacayaasha Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaruhu ayaa safiirka China ee Soomaaliya Qin John ku wareejiyay kusimaha wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas oo u garab taagnaa wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. safiirka dowladda China ee Soomaaliya u fadhiya Qin John ayaa sheegay in gargaarkani ka kooban yahay booyadaha biyaha lagu kaydsado marakaneecooyin iyo teendhooyin jamhuuriyadda China ku soo caawintay dadka Soomaaliyeed ee barakacayaasha ah oo ay abaaruhu saameeyeen. 10,000 pieces mosquito nets and 500 pieces water storage tanks, a total value near $6 million. I hope that assistance will help Somali people overcome drought-stricken. kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka xildhibaan Cilmi Cumar Caynsane oo la wareegay shixnadan ayaa sheegay in dadka abaaruhu saameeyeen ee gudaha dalka ku soo barakacay shixnadan in la gaarsiin doono. maanta halkan waxaan u joognaa deeq nooga timi dalka China, deeqdaas oo ah agab loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ee abaartu saameysay oo kuwaas oo ka kooban teendhooyin, caagaga biyaha lagu shubto iyo marakaneeco. runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dowladda China oo runtii aysan ahayn markii koowaad ayna soo gaarsiiyaan deeq noocan oo kale ah. wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Xaamud Maxamed ayaa u mahadceliyay dowladda China oo soo gaarsiisay wasaaradda gargaarka deeqdan dadka barakacayaasha Soomaaliyeed loogu talagalay. waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo dowladda aan saaxiibada nahay Chinese-ka oo mar walbaba la daba taagan inay caawinto Soomaaliya xiriir qoto dheer oo siyaasad iyo dhaqaale uu naga dhaxeeyo. waxaan shaki ku jirin in Soomaaliya ay sanadii ugu dambeysay marxalado fara badan ay la soo gudubtay ayna jiraan dad fara badan oo dhibaataysan oo u baahan in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo. wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loo caawin lahaa dadka barakacayaasha ah ee ay abaaraha iyo colaadaha al-shabaab saameeyeen. Sugaal Macalin Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.